Nico Williams oo arrin la yaab leh u sameynaya si uu ugu biiro Barcelona. Nico Williams ayaa lagu soo waramayaa inuu ogol yahay inuu mushaarkiisa hoos u dhigo si uu u biiro Barcelona xagaagan, sida uu sheegay khabiirka suuqa kala iibsiga ee Ben Jacobs. Agaasimaha ciyaaraha ee Barca Deco ayaa la kulmay wakiilka Williams si ay ugu wada hadlaan heshiis suurtagal ah. Barcelona waxay diyaar u tahay inay siiso 12 malyan oo euro oo mushaar guud ah. Waa isla tiradii ay hore ula gaareen ciyaaryahanka sanad ka hor. Laakiin Barcelona ma ahan kooxda kaliya ee la dhacsan 22 jirkan. Bayern Munich iyo Arsenal ayaa sidoo kale doonaya saxiixiisa. Kooxdiisa haatan ee Athletic Bilbao waxa ay bilaabeen wadahadalo cusub oo ku saabsan qandaraas kordhin iyaga oo doonaya inay sii haystaan xiddigooda ugu muhiimsan kooxda. Williams wuxuu ka yimid kooxda Baskonia sanadii 2019, wuxuuna si joogto ah u noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu fiican La Liga. Haddii aan ku sii socdana qeybaha kale ee barnaamijka, Milos Kerkez oo taageerayaasha Liverpool la wadaagay war farxad u ah, sida uu ku waramayo Fabrizio Romano, daafaca bidix ee kooxda Bournemouth iyo xulka Hungary. Milos Kerkez oo 22 jir ah ayaa si buuxda diiradda u saaray ku biirista Liverpool. Kerkez ayaa horay ula heshiiyey Liverpool dhanka shuruudaha shakhsiga ah, wuxuuna iska diiday xiisaha uga imaanaya kooxo kale. Wadahadallada u dhexeeya Liverpool iyo Bournemouth ayaa haatan meel wanaagsan maraya, iyadoo la filayo in qiimaha heshiiska uu gaaro ilaa 45 milyan oo pound. Heshiiska ayaa lagu tilmaamay mid dhammaystirkiisu yahay arrin waqti iyo faahfaahin farsamo oo kaliya ay ka dhiman yihiin, taasoo noqonaysa xoojintii ugu dambeysay ee uu tababare Arne Slot ku dhisayo kooxdiisa ka hor xilli ciyaareedka cusub ee 2025-2026 kadib imaatinka Jeremy Frimpong iyo Florian Wirtz. Ugu dambeyntiina, Enzo Maresca uu shaaciyay caqabadaha ay Chelsea kala kulmi karto tartanka koobka kooxaha adduunka. Tababaraha Chelsea Enzo Maresca ayaa ka hadlay caqabadaha uu ka filayo tartanka Club World Cup ee sanadkan ka dhacaya Mareykanka. Maresca wuxuu yidhi, waxaan la ciyaareynaa kooxo ka kala yimid dalal fog oo aanu xiriir joogto ah la lahayn, sida kooxaha kale ee Premier League ama kuwa Yurub ka ciyaara. Wuxuu intaas ku daray, waxaan isku diyaarinaynaa annagoo daawanayna kulamo badan oo ay ciyaarayaan kooxaha naga soo horjeeda, si aan u falanqeyno dhaqdhaqaaqyadooda iyo falsafadda ay ciyaaraan. Waxaan ku ciyaari doonnaa gudaha Mareykanka, garoomo kala duwan iyo deegaano cusub. Wax walba waa kuwo cusub. Keliya anaga ma aha waa tartan cusub. Wax kastana way dhici karaan. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeenii bandhigga ciyaaraha oo aan caawa uga hadlayay warar dhowr ah. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalkana la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.